السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto daga daawareysaan. Qodobada barnaamijkan idinku wayno waxa kamid ah hogaamiyaha Xisbullah Sheekh la yiraahdo Naciim Qaasim ayaa markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadlay Xisbullah inay gali doonto dagaalka hadii la soo weeraro Iiraan oo ay difaaca Iiraan qayb ka noqon doonto. waxaa soo kale aan idin hayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo laga helay baqshad ama warqad ay ku jirto fariimo aan la garanayn iyadoo baaritaan lagu hayo baqshadaas oo laga shakiyay yana waan idin hayaa Israa'iil oo u qabatay waqti xadidan Xamaas inay hubka ku soo dhiibaan hadii ay soo dhiibi waayaan maxaa dhacaya tafaasiil baan idinkaga hayaa qaybaha dambana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa إسرائيل عيداً كذا أمان كوارين لياب لقلبت كسمايي مسجد كبركيسن الأقصى كدب مركي إمامكي مساجدك عدك قرحونا صلاة التراويح ضدك أي جعلايين أي مساجدك كو أمرين إنو كفوقادو حل بشا بركيسن أي رمضان أي فود نقصو هايسو أميها حزب الله شيخ ليرادو نعيم قاسم أيام مركي وقوه الرئيسي فافاهين كبحيي دورك أي حزب الله قادن نيسو هدي لا ويررو إيران هدي لا ويررو محي قبانيسا حزب الله سعد ولي حزب الله فافاهن لوغا محين مركا لغا ريبو هذا الله يرير لكن ورعد أو فشلا أو حزب الله دقالكا إني قيب كتاهي لما سو سارين لكن ما تايو شيخ هذا مركا ندي تسو wararkii ugu dambeeyay jirada la yiraahdo Raayul Yawm waxay leedahay Xisbullah ayaa war soo saartay waxayna ku celiyeen mar kale diidmadooda ku saabsan inay hubkooda dhiibaan dhanka kale waxay sheegeen Xisbullah inay diyaar u yihiin difaaca Iiraan waxay dhanka kale sheegeen in markaa ay diyaar u yihiin inay difaaca ka qayb qaataan Iiraan hadii la isku dayo Iiraan in la weeraro waxayna diideen hubkooda in ay dhiibaan waxayna sheegeen in hubkan ay yahay hubkii muqaawamada laguna wajahayay Israa'iil haddaba warbixinta way sii socotay waxa leeyahay xogayaha guud ee ururka Xisbullah Sheekh la yiraahdo Naciim Qaasim ayaa isniinta maanta mar kale sheegay inaanay hubkooda marnaba dhiibi doonin dhanka kalena wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin Xisbullah inay naftooda u horaan sidii ay u difaaci lahaayeen Iiraan ugana hortagi lahaayeen hanjabaadaha isdaba jooga ah ee uu Mareykanku ku hayo Iiraan Naciim Qaasim hadal ayuu jeediyay isagoo ku soo beegay munaasabada xuskii sanadeedkii ka soo wareegatay markii shuhadadoodii la dilay oo madaxdoodii la dilay ayuu ka hadlayay marka arin marka horeba way ka hadleen oo ah ku saabsan hubkooda inaanay dhigeen haddana maxay ku celeen tadxiya u sameeynayna Iiraan tadxiya waxa la qofka naftiisa markuu horo Iiraan waxay yiraahdeen nafteena u horeyna Iiraan meesha ay ka baxday maxaa u yaala Xisbullah iyo kullu waa awlaadi waa lagu tumaraya waxa ay ku joogaan waa Iiraan marka wuxuu yiri Iiraan weerarkeeda tadxiya diyaaruna inaa u sameeyna nafteena inaan u horno kulay ciyaar marka ma tadxiya hadii la isticmaalo waa erayaan caadi ahayn carabtu waa meeshii ugu dambeysay tagtay waay marka halka nala kama taabtay leeyihiin midda kalena hubkeena ma dhigaynay leeyihiin marka taa macnaheedu wuxuu ka dhigatahay hadalkii Iiraan ay lahayd mandiqada ama gobolka kulligiisa uu isla holci doonaa ayay tani iyaduna fariin u taale leeyahay iyadoo horay hadalkan oo kale ay u sheegeen kooxda Ansaarullah Xuuthiyiinta dalka Yemen oo iyaguna yiri hadii Iiraan la weeraro annagu meel dheer hadda maba ka raadinaynaba agteenay joogaan nimankii Mareykanka ahaa badda ay noo dhoobay hinagta ka saareenay taagay marka xaalkaasu wararkii soo kordhay ayay ka mid yihiin wararka kale aan idin hayo caawa Israa'iil ayaa waqti u qabatay Xamaas waxay leeyihiin waqtiga hadii la dhaafo oo aad hubka ku keeni weysaan dagaal ayaa noo balana macnaha duqaymihii iyo dagaalkii iyo wixii soo celinayna laakiin waqtigaas ay idin qabanay waa inaa waqtigaas ku keentaan hubka Xamaasna hore maxay u tiri hubkeena ma dhiibaynaa sida Xisbullah oo kale
maraykankaa soo dhex galay oo maaragtay tartiib hubka waaweyn soo dhiiba kan yaryar dhiiba hubka maxaa ku dhiibnaa dheh hubka marka hore maxaa loo qaatay waxaa loo qaatay al-ixtilaal gumaysigii ma baxay hadduu daanta galbeed dhul cusub xoogayaa oo hadda adduunkii oo dhan cambaareynayaa moogtiin maalmaha niyuuskaasaa socda daanta galbeed qaybo ka mid a ayay israa'iil qaadanaysaa xoog magaalada qudus meel waxaa jirta la yidhahdo khadul akhdar 1967 meeshii ay qabsatay meelaan ahayn intaanba soo dhaafi karta la yidhaha hadda way ku darsanaysaa dhulkii falastiin oo dhan ay boobaysaa marka waxay leeyihiin al-ixtilaalkii ma baxay gumaysigii miyaa baxay may inaga daaya dhehen markaan idintuso israa'iil warka ay soo saartay haddaba wararkaa soo baxay haddaba waxay sheegtay jariirada ra'yul yawm israa'iil waxay waqti u qabatay xamaas muddo 60 maalmood ah si ay hubka u dhigto marka kulan ayaa waxa uu ka qabsoomi doonaa golaha la yiraahdo nabadda Washington khamiista soo socota waxayna sheegtay haddii hubka 60 maalmood xamaas ay ku soo dhiibi weyso in markaasi macnaheedu uu yahay inay markaa dagaal ay diyaar u tahay oo israa'iil ay dagaal mar kale qaadi doonto waa tahay marka hanjabaadaas iyaduna way iska socotaa saan haddaan yeelin haddaan waxaan la ii samayn ayaa socota dhanka kale war cusub oo isna caawa soo kordhay wararka soo kordhay ka mid ah xafiiska Netanyahu mar walba waxaa lagu sameeyaa security check wax la yiraahdo ama amniga ayaa la fiiriyaa la ogaanayaa wax walbo laga shakiyo markii xoogaa la joogaba waa la sameeyaa marka maanta waraa soo baxay la leeyahay baqshad aan la garanayn oo laga shakiyay ayaa laga helay xafiiska Netanyahu baqshadii waxyaabaa lagu arkay inkastoo walxa qarxa aysan ahayn haddana waxaa loo qaaday shaybaar si loo fiiriyo walxaha la isticmaalayo sunta ah haddii odagu taabto in aakhira loo diro la rabay waxyaabo badan ayaa lagu arkaa la leeyahay marka hadda waxaa gacanta ku haya warqadii hay-adaha ammaanka oo baaritaan ku haya xaggee kii timid warqadan sidee tahay haddaba marka aan idintuso wararkii ugu dambeeyay sheekadaa laga qoray waxaa la helay warqad baqshad ayaa la helay xafiiska Netanyahu waxaana la sheegay waxaa lagu arkay gudaheeda haddaba qaybta amniga degdega ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isniinta maanta waxay sheegeen kooxo ka tirsan hay-adaha ammaanka inay soo heleen baqshad iyagoo baaritaankoodii caadiga ahaa xafiiska ka wada magaalada Qudus haddaba xafiiska Netanyahu ayaa waxaa la sheegay warqadaasi inay baaritaan lagu sameeyay booliisku waxay cadeeyeen in warqadu aanay walxaha qarxa aysan ahayn sida lagu daabacay jariirada Times of Israel dhanka kale warqada booliisku waxay u qaadeen mukhtabarka ama shaybaar si loo soo baaro walxo laga shakisan yahay in warqada ay ku jireen marka xafiiskana alaabtaas laga helaa leer odaga marka meel kasta waa kaaga socota baqshada lagu soo maraa meel kale marka arintii wali baaritaan marka ku socda sida xaal ku noqdo ayaanu arki doonaa ilay waaya qadar xayisiisa kadib waxaan idin hayaa arin ka dhacday masjidka barakeysan ee al-aqsa galabta imaamkii masaajidka ninkii ugu codka qurxoona markuu quraanka akhrinayo dadku ay jeclaayeen iyadoo bisha Ramadaan ay soo dhowdahay taraawiixda iyo tahajjudka iyo ninkii masaajidka dadku ay jeclaayeen ayay Israa'iil maanta talaabo ka qaaday ula kaca wuxuu sameeyay ma jirto codkaaga dadka jecel yihiin miyaha quraan damba kama akhrinaysa meeshaan sheeko yaab laha socota masaajidkaas ilaahay uu leeyahay sheeko naxdin leh runtii wax naxdin la waayo nin imaama oo masaajidka aan waxba galabsan oo sidee dadka u jeclaan karaan codkaaga quraanka aad ugu akhrinaysid loo fogeynayo wax la yaab loo waayo haddaba Falastiiniyiintu waxay sheegeen maanta imaamkii masjidka al-Aqsa in Israa'iil ay qabatay waxay rabtaan dambiga aan galay muxuu yahay dambi maadan galin haye marka hore muddo isbuuc laguguma arkiro masaajidka oo masaajidka maxaa ka leeyahay
masaajidka imaamkii aan ahay maxaa dhacay may muddo 7 marka hore ma lagugu arki karo waa been ramadaanka dhan ay rabaan inay dhaafiyaan ninkan dee waa nin cod qurxoon marka uu salaada dujinayo dadku ay ilmeeyaan khushuuc fara badan dadka nimankan dee waxaas ma arki karaan sheeko la yaab laa marka dhacday nimankaa falastiiniyiinta ilaahay ugoodii leeyihin masjidkaasna ilaahayaan u baraynaa bishii ramadaan inay soo dhowdahay ogyihiin yahuudda sidaasay marka imaamkii ku sameeyeen haddaba telefishinka aljaziira ayaa caawa soo daayay warbixin uu leeyahay gumaystuhu waxay xabsiga u taxaabeen oo ay qabteen imaamkii masjid al aqsa waxayna sheegeen iyagoo dhanka kalena soo rogay waxyaabo dhibaya dadka ku tukanaya bisha barakaysan ee ramadaan haddaba waxaa la sheegay booliiska in ay israa'iil maanto isniina imaamkii masjid al aqsa asheekh moxamed cali al cabaasi ay qudus markaa ku qabteen masaajid ku qabteen waxay u sheegeen inay ka mamnuuceen muddo 7 ah in markaa uu masaajidka tago areerihiisa iyo masaajidkaba u dhowaado meeshaa marka ma tegi kartiday leeyihiin haddaba waxaa la sheegay wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta leedahay wafaa in ciidamada israa'iil ay sheekha qabteen oo ay joojiyeen isagoo masaajidka gudihiisa ku jira ma jiro wax asbaab ah oo sababta loo qabtay ku saabsan haddaba qaraarka in laga fogeeyo masaajidka muddo isbuuc ah ayaa waxaa la sheegay in ay markaa la yaab ku noqotay dadkii halkaa joogay maxamed al cabaasi imaamkii masaajidka waxaasaa lagu sameeyey marka dee adduunkan waa arkaysaan adiga haddaad xorriyad masaajid uga haysatid imaam haddaad tahay masaajidka xorriyad aa ku tujiso haysatid dadaa dhibkan ku jira